hay-adda wadaniga ah ee Soodaafo oo ka duuleysa sidii dadka barakacayaasha ah ay ugu abuuri lahayd fursado ganacsi oo ay ku maareeyaan noloshooda waxay qadar lacageed oo dhan 10,000 oo dollar maanta ku wareejisay 50 qoys oo degan kaamamka barakacayaasha ee magaalada Burco iyo qaar ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay dagaalada ka socda wadanka Yemen ee ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. sidoo kale hay-addu waxay barakacayaashan muddo bil ah siinaysay aqoon kororsi ku saabsan maareynta ganacsiyada kooban. munaasabadda wareejinta lacagtan oo ka qabsoontay hoteelka Daale ee magaalada Burco waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco mas'uuliyiin ka socotay hay-adda wadaniga ah ee Soodaafo iyo gudoomiye ku-xigeenka hay-adda barakacayaasha ee gobolka Togdheer. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Cabdisalaan Ibraahim Ducaale Cawke oo ku hadlayay afka hay-adda Soodaafo waxaanu si faahfaahsan uga warbixiyay qadarka lacageed iyo qorshaha ay ka lahaayeen. waxaynu maanta xagan isugu nimid inaynu xaflad u qabanno konton qoys oo ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamka barakacayaasha ee magaalada Burco iyo sidoo kale dad Yemeniyiin ah oo dad soo gubay noqday ah oo Soomaali ah. waxaynu siin doonaa insha Allah lacag aan waqti ugu talagalnay inaan kor ugu qaadno ganacsiyo yaryar oo ay leeyihiin si ay uga soo kabdaan burburkii dhaqaalaha ee soo gaaray haddii xanuun sameeyay haddii dhaqaalayawiba ay samaysay sidaas la mid ah intaanaan bixin lacagta ka hor waxaanu u qabanay dadkan muddo ku dhow bil tababar hababka maareynta iyo maamulidda ganacsiyada yaryar si bal ay xirfad ay uga helaan qaabka ganacsigoodaas ay u sii jiri lahaa ama u maareyn lahaayeen. marka ujeedka guud aan ka lahayn hawshan waxa koow ka ah in kor loo qaado habnololeedka dadweynaha ku nool kaamka barakacayaasha iyo inaanu aqoontooda taageerno si ay bahalkii ganacsigoodaas ay uga sii madhaliyaan horumariyaan bari kamaalna meelo kale iyo higsi kale ay gaaraan. marka labada ujeed baan lahayn mudane Maayar iyo Barsab waxaa ka faa'iideysan doona 40 qoys 4 IDP oo ku yaala kaamka barakacayaasha magaalada waliba kuwa ugu fog waliba kuwii dhawaan la barakaciyay meelaha albaabka loo sameeyay boorka ka baxsan magaalada gudaheeda iyo 10 qoys oo ah 10kii qoys ee ugu dantayaan dadkii ka soo noqday Yemenka. dhanka kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo waxaana hay-adda wadaniga ah ee Soodaafo ay ku amaaneen waxtarka had iyo goor ay la garab taagan tahay dadka jilicsan iyagoo hay-adaha ugu baaqay inay hay-adda Soodaafo ay si gaar ah ula shaqeeyaan. iyaguna waa ku mahadsan yihiin sida wax idin soo gaarsiinayaan waliba dhalinyarada Soodaafo la yiraahdo waa dhalinyaro aad iyo aad gobolkeena uga shaqeysa hay'adda internationalka waxaanu soo jeedinaynaa hay'adda maxalliga ama NGO-ga maxalliga ee Soodaafo la yiraahdo inay 100% la shaqeeyaan waayo waxa ay aad ugu dhow yihiin dadka jilicsan baahida qaba ee u baahan in nolosha laga kaabo. insha Allah ta'ala hay'adaha waxaan ku tiirsanaa mar walba dadka waxay u baahan yihiin wax loo qabto in ganacsi loo sameeyo in beero loo sameeyo in xoolo loo sameeyo in ay maxay hayteen xirfado loo sameeyo si dadkaas ay u shaqeystaan. haddii mashruuc ama sanad socdo ama 2 sano socdo ka go adoo iska fadhiya ama bush ku jira hadaan nin tahay ama islaanta ay iska fadhiisato oo ay shaqeysan weydo oo tira barakacayaal baanahay wallahi halka arrin mushkilad bay noqonaysaa. intan yar ee maanta la idin siinayana ganacsigu wax yar buu ka bilaabmaa dadka ganacsatada waaweyn aragteen wax yar bay ka bilaabeen. insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa maanta inta yar ee faraksharka maanta la idin siinayo in dad badan insha Allah ta'ala ay ganacsiga waaweyn ku gaari doonaan haddii ay mariyaan waajibkii iyo shuruudihii islaamiga maadaama islaam nahay. dhankooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka dawladda hoose ee degmada Burco iyo hay'adda barakacayaasha ee gobolka Togdheer. halkan maanta waxa la isugu yimid 4 kaam oo kala ah kulliga waxaan leeyahay Dhiinay Barwaaqo Al-Aamin Nabadiya Nasiya iyo 10 qof oo ka soo noqday iyaguna dadkii Yemanta ka soo barakacay
haddii sheegay waxaa maanta laydin dhiibay hay-addaasi ay idin dhiibtay inaydu ka faa'iidaysataan oo inaydu ka muuqato waa in laga dareemo hadhowto noloshiina inay wax ka bedeshay waxa weeye hay-adda qudhaysa ee dhaqsiyaa ugu badan looga soo jawaabtay maalintii aan u gudbinay maallabaadkeed way nala joogeen iyagoo la dadkii baan u baahanay inaanu la kulanno inaanu dadkii wax u qabanno hay-ado badan oo international maanta Saydaafa in badan nooga horeysa ugu dambeyn mid ka mid ah dadkii qaxoontiga ahaa ee ka soo barakacay waddanka Yemen oo ka faa'iideystay lacagtani ayaa si weyn ugu mahadnaqay hay-adda Saydafo anagoo ururka Yemen barakacayaasha Yemen aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa madaxdeeda sharafta leh iyo hay-adda sharafta leh soo martigelisayba Shucayb Xasan Dheere telefishinka Sahan magaalada Burco